Ethiopia marnaba xaq uma lahan in ay farageliso madax banaanida iyo jiritaanka Soomaaliya badda ay raadinaysana halka ku haboon ha ka raadiso waa fariintii ugu adkeed ee dawladda Mareykanka ka soo baxday muuqaalkan ayaynu ku soo koobi doonaa waxaana Yuusuf Maxamed Axmed hadii aad ugu cusubteen fadlan ku soo biira barta Facebook aan ku leeyahay ee si la mid ah barteeda YouTube-ka oo ka mid noqon saaxiibada ugu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaalo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahinno qaybta commentiga wada buluug halaga dhigo calanka Soomaaliya lagu soo xardho aynu muujino awoodeenna iyo sida aan uga dhiidhinayno rabitaanka xabashida iyadoo ay ka sii darayso xiisadda diblomaasiyadeed ee nagala dhaxaysa dawladda Ethiopia isla markaana salka ku haysa damaceeda waalida ah ee ku doonayso in qayb ka mid ah badana ay si aan sharci ahayn ay ku qaataan ayaa waxa soo baxaya fariimo iyo digniino halis ah oo ah kuwii ugu dambeeyay oo loo diray dawladda Ethiopia waxa digniintii ugu adkeed laguna hadlo luqadii ugu adkeed ay dawladda Mareykanka ay u dirtay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed kaaliyaha xogeyaha guud ee arrimaha dibadda dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in Ethiopia aysan xaq u lahayn inay farageliso madax banaanida Soomaaliya aadna ay uga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa Ethiopia ay ku faragelinayso ay ugu baaqday damaca dawladda Ethiopia si ay u hirgeliso in ay ku raadiso wada sharci ah oo ay la xaajooto dawladaha leh badaha oo ay sheegtay in heshiis dhinaca ganacsiga ay la gaaraan Ethiopia xaquma lahan inay ku xadgudubto madax banaanida Soomaaliya waa in ay badaha dalalka dariska qaab ganacsi oo heshiis lagu yahay u isticmaasho taasi oo ogolaanaysa sharciga caalamiga ah ee wadamada aan badaha lahayn balse ma ahan in ay boobto bad aysan lahayn annaguna waan ka soo horjeednaa midaasi ayay tiri haweeneydan xogeyaha arrimaha dibadda u qaabilsan dawladda Mareykanka Ethiopia waxa ay doonaysaa inay si toos ah ay iyadu u degto isla markaana ay dekad ka dhisato iyadoo kala xaajootay madaxweyne aan sharci u haysan inuu heshiis noocaas oo kale uu saxiixo oo aan kala jeedo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi Ethiopia waxa ay waqti badan gelinaysaa sidii ay u rumayn lahayd reedeedii ahaa in mar un bad ay hesho iyadoo uga faa'iideysanaysa Somaliland oo ictiraaf dunida ka baadgoobaysay in ka badan 30 sano miyaa lagu iibsan karaa badeenna ictiraaf iyo wax la mid ah aragtidaada qaybta commentiga kaga soo dhiibo nabadgelyo